جامعة Somaliland University of Technology ayaa maanta hotel ka ah magaalada Hargeysa xaflad soo dhaweyn ugu sameysay ardayda sanadkan ka qalinjebisay dugsiyada sare ee dalka isla markaasina ugu gudbisay waxbarashada sare ee heer jaamacadeed xafladda soo dhaweynta loo sameeyay ardayda sanadkan ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka ayaa waxa goobjoog ka ahaa qaar ka tirsan maamulka jaamacadda Somaliland University of Technology waxaana halkaasi maamulka iyo macallimiinta jaamacaddaasi ay ardayda uga warrameen heerka jaamacadeed iyo aqoonada ay bixisay jaamacadda Somaliland University of Technology. Dr. Saeed Allah xafido oo maanta naga yara maqan oo xagga dibadda ku maqan hawla jaamacadda ay leedahay waxa la aasaasay jaamacadda 2002 ayaa la aasaasay iyadoo ka soo jeeda markii hore college Hargeysa college loo oran jiray oo 89kii ilaa iyo 2002 shaqeynayay jaamacadda hadii alla idmo waxay samaysay amba ay haysaa resources aad u fara badan marka laga tago qaybta dhulka iyo dhismaha inay iyadu leedahay resourceska amba hantida jaamacadda ay leedahay hadii jeer waxa ku xidhan tahay sida ay u fulayso ama programka uu soconayo badanaa waxa ku xidhan tahay resource-ka ay haysato oo maanta haddaan halkan ka soo jeedinayo inaan wax kale amba something aan furayo waxa ku xidhan tahay facility-gii saacidayay amba ii sahlayay inaan furno programkan inaanu haynado resource-ka jaamacadda waxa ka mid ah dhismihii oo iyadu ay leedahay waayo waxaan idhi lacagta ka soo koow de shisheeyadan u shaqeeyo de wixii aan soo dhigtayba waxay noqonaysaa useless somaha waayo walaalahay oo u baahan magaranaysa wixii aan soo dhigtay dadan garanaynin oo maxaa la aan ka go'onayba inaan u shaqeeyo ma ahayn somaha talabaad waxaan doonayaa in sheego Somaliland University waxay nagu soo dhaweynaysaa maxaa la qaybka la yiraahdo electricity waa dhiganaysi qaybka maxaa lightka loo sameeyo ka sahlanaadaan haddii ilaahay idmo waxaan isku daynaa inay wax badan aan u sameeyno services ardayda sida photocopy oo kale ama printing oo kale inay qaar bilaasha ama buugaagta maaragtay majority-gooda inta maaragtay ugu sahlan oo dhan ama qaybta hoose oo dhan in maaragtay free lagu siiyo handout-ku free noqdo oo free loogu daabaco oo aan maaragtay wax waliba aanay lacag noqonin additional oo la charge gareeyo inaanay noqon ma sha Allah ku dadaaleen waxa kale oo anagu aanu maaragtay ardayda u haynaa aanu ugu ballan qaadaynaa aqoon tayo leh macallinka dhigaya uu yahay competent mid u qalma inuu deliver gareeyo gabagabadii qaar ka mid ah ardayda ayaa halkaasi su'aalo ku weydiiyay maamulka jaamacadda